laamigaasu sida u yihiin iyo silaca aan la dhex fadhinay iyo maanta sida uu eg yahay dawlad baa loo dhalatay maanta dawlad dhalataan waa dawlad dhalataan dhigi karnaa awalna wax alla waxaan ahay jinni inaan ahay irisnahay baba laba kala yaqiinba laa ilaa wax weyn waa la faani karaa maanta waa lagu faani karaa maanta laamiga magaalada istiraajida oo magac xumay ahayd hadda magaalada adduunka ugu caansan oo ugu magac fiican ugu wanaagsan ay noqonaysaa waatana waa arkaysaa dhismaha ama dayactirka waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne ayaa socota muddo bilooyin ah taas oo gaaraysa 6 kiiloomitir waxaana dhismaha waddadan iska kaashanaya SSF oo bixisay fanka ama lacagta lagu dhisayo waddada iyo waliba kambaniga Isaahil oo kamid ah kambaniyada waaweyn ee ka howlgala gobolka Hiiraan oo isagoo ku guuleysay fulinta hawsha dhismaha ama dayactirka waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada Beledweyne hawsha dhismaha oo socota muddo 6 bilood ah ayaa waxaa haatan heer gabagaba ah maraya dhismaha ama dayactirka 3 kiiloomitir ee ugu horeysay taas oo loo dhisay qaab casri ah lana mid ah muuqaal ahaan laambiyada kale ee caalamka ama kuwa ku yaala magaalooyinka qaar ee dalka dayactirka ama dhismaha 3 kiiloomitir ee laamiga ah ee haatan maraysa heerka gabagabada ayaa soo martay 6 heer ama 6 marxaladood oo ah qaab dhismeedka waddada laamiga sida uu sharaxayo maxamed axmed faarax oo loo yaqaan maxamed Saley isla markaana kamid ah howlwadeennada kambaniga Isaahil ee wada hawsha dhismaha waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada Beledweyne oo sharaxaad kooban ka bixiyay halka uu marayo dhismaha waddada laamiga ah iyo marxaladihii kala duwan ee soo martay waxaana uu sheegay maxamed Saley in dhismaha ama dayactirka waddada laamiga ee dhex marta magaalada Beledweyne ee soo martay qaab kala duwan isla markaana maanta la bilaabay dhismaha ama saarista laamiga heerkii ugu dambeeyay 3 kiiloomitir ee ugu horeysay dhismaha waddada laamiga isla markaana ay dhawaan ay rajaynayaan in gebi ahaanba la soo gabagabeyn doono dhismaha waddada laamiga ee dhex marta magaalada taas oo gaaraysa 6 kiiloomitir waa kan maxamed Saley oo ka waramaya halka ay marayso hawsha dhismaha waddada laamiga iyo waliba qaabka kala duwan oo soo maray qaab dhismeedka waddada laamiga ee dhex marta magaalada isla markaana fariin u diray bulshada magaalada Beledweyne waxaana hadaladiisii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacu waa maxamed axmed faarax oo kamid ah teamka Isaahil Construction and Logistics Company oo dhisay waddada Beledweyne taas waddadaas oo gaarayso 6 kiiloomitir 3 kiiloomitir oo Lubwana oo site-ka bariya 3 kiiloomitir oo Lub 2 iyo Lub 3 ah oo site-ka galbeeda waddadan waxay socotaa 6 bilood ah haddana waxay maraysaa fayskii ugu dambeeyay waxay soo martay subgrade oo ah aasaaskii ugu hooseeya oo la garaacay la habeeyey la isku aadiyey kadibna waxaa la saaray subbase oo asigana 25 sentiya wuxuuna asigana waa la compact gareeyey waxaa ku xigay baseki oo ah asigana stabilization aan dhahaa waa shamiito iyo carakaawo la isku qasay ayadana waa lagu garaacay waa lagu levelayey kadib waxaa ka dambeeyey in la saaray MC30 kadibna waxaa ka dambeeyey layerkii koobaad oo laamiga ah oo first seal haddana waxaa ku xigay layerkii labaad oo ah kan hadda maanta aan saarayno finalka Lub 3 waxaan ku soconnaa kii u dambeeyey guud ahaan 6 heer ayuu soo maray heerkii ugu dambeeyay ayaan hadda maraynaa waxaanu rajaynaynaa maalmahan soo socota inaan ka baxno 3 kiiloomitir oo ugu horeeyo 3 kiiloomitir oo dambana waxaan rabnaa inaan bishan inta ka dhiman inaan kaga shaqeyno ugu dambeyn waxaan rabnaa inta aan la gaarin 15 November inaan waddada aan dhamaystirno waxaan la kulanay caqabado badan waxaa kamid ah fatahaadaha kamid ah waxaa kamid ah roobaba kamid ah waxaa kamid ah coronavirus oo adduunka dhan saameeyay waxaa kamid ah qalabka iyo materialka marmar naga kala go'ayay caqabadkaas fara badan waqti dheer ayay nagu qaadatay alxamdulillah maanta wax naga dhiman ma laha rajada ka waran marka ka qabtaan in waqti kooban soo gabagabaysan hadda waxaan rajaynaynaa inaan dhamayno oo complete gareyno inta aanan la gaarin 15 November waddadan waddo aad quality u leh waaye waddo markii horena la dhisaan gareeyay hay'adda mashruuca bixinaysa oo SFF iyo consultantigeeda Abacus waxay muujiyeen dadaal aad fara badan waxay geliyeen aqoon iyo cilmi ay geliyeen waddadan waddo oo quality-geeda la isku hubo waaye cabirka la qaatay waa 6.4 mitir waaye waana enaf hadda way ku filan tahay waa standardkii markii hore waddada ahayd haddii laga sii bilaariyana waxay u baahan tahay iskaashi kale oo dawladda hoose iyo hay-adaha inay iska kaashadaan maxaa yeelay meelaha qaarkood space lagu ballaariyo ma lahan
meelo space leh way jiraan laakiin wadadu inta badan waxaan isleeyahay wado eenaf oo ku filan way noqonaysaa si loo ilaaliyo jiritaanka laamiga dadka reer Beledweyne maxay tahay fariinta u diraysaa waxaan u dirayaa wadadan in la ilaaliyo waa hanti naga wada dhaxayso cid gaar u leh ma lahan in laga ilaaliyo biyaha wasaqda lagu shubayo in laga ilaaliyo biraha iyo gooynta la gooynayo in laga ilaaliyo wax alaale wixii damage u keenayo waxay u baahan tahay community-ga bulshada inay iska kaalmaysato dhammaan qof kasta mas'uuliyad ayaa ka saaran wadadan ma lahan sida muuqata laamigan dhismaya ee dhexmara magaalada Beledweyne waxaa loo yaqaana marshe biyoodi ama meelaha loogu talagalay inay maraan bulshada iyo biyaha xilli roobaadka waana su'aasha ay isweydiinayaan dadka reer Beledweyne cidda looga baahan yahay dhismaha marshe biyoodiga haddaba ay tahay cidda looga baahan yahay dhismaha marshe biyoodka ma maamulka iyo bulshada magaalada mise kambaniga wada howsha dhismaha wadada laamiga ah su'aashaas ayaan weydiiyey Maxamed Saney maadaama uu ka mid yahay howlwadeenada kambaniga Istaahil ee wada howsha dhismaha ama dayactirka wadada laamiga ee dhexmarta magaalada Beledweyne waxa uu ku jawaabay marshe biyoodiga hadda kambaniga uguma jiro mashruuca uguma jiro laakiin waxa laga rabaa dadweynaha iyo maamulka gobolka inay degmada inay iskaalmeystaan oo marshe biyoodiga ayaga dhistaan sidoo kale qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Beledweyne oo si aad u soo dhaweeyay dhismaha ama dayactirka lagu sameeyo wadada laamiga ah ayaa waxa ay u mahad celiyeen kambaniga Istaahil iyo waliba cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha ama dayactirka lagu sameeyo wadada laamiga ah waxaana si isku mid ah fariin ugu direen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ee ganacsiyaha kala duwan ku leh hareeraha wadada laamiga ah maamulka gobolka kan degmada iyo waliba laamaha amniga oo ugu baaqeen si wadajir loo ilaaliyo nadaafadda wadada laamiga ee dhexmarta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Cali Jimcaale oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Qudaar alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku faraxsanahay in jidkan sida quruxda badan loo dhisay sida casriga ah waxaan ku yiraahdaa sida aad iyo aad u quruxda badan waxaan rajaynayaa jidadka kale ee magaalada ka dhiman in sidaan loogu dhiso kambaniyaasha ku guuleystaan in si sharaf leh oo wanaagsan oo sidii hadda wax noogu qabteen oo kale ay noogu qabtaan horumarkan ay maanta na tusiyeen in maxaan ku yiraahdaa kambaniga Istaahil maxaan ku yiraahdaa haddana jidadka kale ee magaalada ka dhiman oo noo sii dhiso oo noo sii wanaajiyo ayagana lagu garab istaago sidii maxaan ku yiraahdaa jidadka loo wanaaji lahaa markii hore waxaan ka aaminsanaa dhismahan waxaan isdhahay waa qiyaano ciid kaliya lagu shubayaa waxaan isdhahay waa godkii biyo baxada leynayso laakiin maanta waxa ay muuqato kambaniyaashan inay yihiin kambaniyaashii Turkiga iyo Switzerland iyo Mareykan iyo China wax ka dhisayo kale sidii wax u dhiseen inay wax u dhiseen waa mahadsantihiin kambaniga Istaahil waa mahad celinayaa iyo maxaan ku yiraahdaa howlwadeenada sameynaya wadada waa mahadsantiin anaga reer Beledweyne waxaan ilaashan doonaa badqabka laamiga iyo nadaafadiisa waana ku faraxsanahay in sidaan anagana loo garab istaaga anagana aan maxaan ku yiraahdaa hawshiina looga tagay aan meeshii ka sii wadno shabiyeediga waxaan isleeyahay aniga ganacsatadii aan ka mid ahay hadii lacag la weydiiyo oo la yiraahdo meesha aad ganacsi ka joogto iska xir ama maxaan ku yiraahdaa marshabiyeediga sameeyso ana diyaar u ah dadka anigoo kale taana diyaar u yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim aniga horta waxa la yiraahdaa magacayga Cabdullaahi Indhooy Nuur magaaladan burburkiisa u dhacay 39 sidii dawladdu uga tagtay joogay intaas wali horumarka hadda nimankan ay kambanigan oo wado Istaahil ay wado horumarka ay wado kambaniga Istaahil ay wadaan ay laamiga ku dhisayaan intaas oo kale wax sameeyay wali ma arag nimankaas waa mahadsan yihiin waa niman dalka u dhashay waa niman muxuu ahay inay dalkooda wax ka qabtaan ku tala galay si nadiif ah oo hagar la'aan ah wax u qabanay laamigaas sida u yiin iyo silca aan la dhaxfa fadhinay iyo maanta sida uu eg yahay dawlad baa loo dhalatay maanta dawlad dhalataan waa dawlad dhalataan dhigana awalna waxa waxaan jilni inaan hayrisnaay baba laba kala yaqiinba cudur aan dhaxta ka fadhin waxaan hayba laba yaqaanba laami ma sameey karno laami loo sama airport loo sameysna wax loo sameeyay adduunka saar ma lahayn ma garat hadda marka bilaaban helna bilaaban alxamdulillah rabbil caalamiin bilaaw gaas marka la sii wado lagu tilaabsado lagu daydo walaalaha sida u qabtay waxaan marka aan idfaraya dadka laamiga ku soo jeeda oo laamiga u dhow oo reehiiraana laamigaas inay badbaadiyaan oo miraxa lagu daadinaa iyo dhaqdhaqa lagu daadinaa iyo bacaha lagu daadinaa iyo qashinka lagu daadinaa laamiga waa fuuq hadii mirax la taabsiyo waa fuuqaya laamigaas in la badbaadiyo qof walba isu xil saaro
inuu laamiga kiisa yahay qof walba laamiga inuu kiisa yahay inuu ku xisaabto ma waa ogeedeen dhaqaaq meel alla meel marnaa wayna hadda oo aad ogtiin meel la mar la waay hadda waa kaas marka meel alla meesha 20 daqiiqo al jaalle meesha hadda barnal iyo aad bugaad rabto nus dollar ka yaraad baabuurtu ugu qaadis ilaa waa baabuur jinisha hayse marka awalna $4 حتى هذا سيدا مو قلي تو هذا لقى بحر دول قفوا تو بحر بل لقى بحر ملح مركوا على عدسلينا قف في هلينا ولامي قاس أصو هلينا الله أركو أحد كستاق بكرة هلا شو شيء هلا قبته قفك أقولوا قبته قفك وأقول له يقول هدان رهيران هاي دتك وحلو قبتي دتك وحلو قبتي دتك وكنا قالوا أنا هذا الليلة تاريخ دار عصي دوت وأنا هذا الليلة وحلا وحي نو قبتين وأنا هذا الليلة وحي لا ينكوها وحي قبتين المجد ولا قول لا بيجنا وان قاشرنا وإلى شرنا وحلا وحي لو قبت لا بيجنا وان إلى شرنا وحلا وحي لو قبتين سلام طلاب إلى شرنا هذا شعب الرجال هذا عندي وحكون ليلة سلوى سكقبلين بالله وانو يتا تاسع نو بالله ما استايل قوام ما تصيدين وحي جرى هرمر وحي كان المقع magacaasoo maanta ku faani karna magaalada bilicdeeda awal waa magac humaynay waa bahdilaynay laamigaynu adduunka waa ka caanay magac huma kaliya hadda maantay hormar aan ku faani karnaa gaarnay waana maadsiyihiin aad u maadsiyihiin waxaan kaloo fursad uga faa'iideysana qolada baabuurta xawaaraha ku eriyayso ummadda ku laynayso inay xawaaraha ka gaabiso oo maamulku la hadlo oo ka codsanaya ay taas ay sameeyaan midda kale dadka dhaqdhaqa ku daadina laamiga oo laamiga naga bahdilayo cid kasta ina weerar ku qaado cid la arka dhagaxayso waa ka codsanay ma ku raacsantiin cid laamigaas ku dheeraysa inaan tuuriyayno ها وانا mahadsantiin assalaamu calaykum maxaa u dhaxay farqiga hore iyo maanta laamiga la ilaa wax weyn waa la faani karaa maanta waa lagu faani karaa maanta laamiga magaalada istiraajida oo magac xuma yahay hadda magaalada adduunka ugu caansan oo ugu magac fiican ugu wanaagsan ay noqonaysaa waatana waa arkaysaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahi rahmaani rahiim magacaygu waa Barre Carabow Axmed waxaan ka mid ahay dadka deegaanka ah xaafadda Kuushin magaalada Beledweyne kambanigan shaqadan qabtay waa uga mahad celinaynaa sida quruxda badan oo kambanigan shaqada u qabtay iyo dadka shaqadan ku soo dadaalay inay qabsoonto ay sidan quruxda badan ay u qabsoonto waxaan rabay fikir yar inaan ku darsado fikirkayga oo ku aadan maamulka gobolka ka degmada ka dawladda hoose ee ku shaqada la maaragtay shaqooyinka wadooyinka ku shaqada leh waxaan aragnaa laamiga asigoo dhismayo in dadka qaar ay rabaan inay ka daba keenaan guryahooda ay gurigoodii iyo laamiga inta u dhaxaysa space carra inay ku shubaan ay rabaan maamulka dawladda hoose waxaan kala talinaynaa inay maaragtay ka qayb qaataan dadka wadada qararkeeda carrada ku shuba wax laga qabto isbedel lagu sameeyo wax aan dawladdu ayna hagaajinin ayna xodogaal aysan u ahayn aan wadada qarkeeda aan laga qaban dadka maaragtay maqaayadaha ku leh wadada qararkeeda waxaan kula talinaynaa aan ku darsanaynaa inaysan qashin keenin wadada aysan biyaha keenin deebta yarta ay xoogay burjukooyinka kula daaheen aysan ku soo daadinin waa naga talo waa naga fikir qof kasta wadada asaas kale maasha Allah wax dhintay wax noole kale yihiin shalay oo hadda dhismahan koor wuxuu ahay wadada dhimatay ee heeday oo maritaanka bajaajta ku adkeeday oo qof dadka maritaankiisa ku adkaay oo meel dhiiqa ah ay heeday maanta laakiin waxa muuqato meel oo la seexo karo nadiifka ay qabto la seexo karo wado oo lagu kala sooyay hal midna waa ku darsanahay booliiska degmada Beledweyne waxaan u sheegaynaa in traffic la helo wadada wax ka qabto Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News Beledweyne